مشروع هدو جرى بيكيو إنا تلاه در إلهي ينفع وقبحي قلد يكون طاي عجيب هذا مغلي جرتين قف لو وصل لدي فرعيه قبا يرى هي محمد بيكي با اسكو سلدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامي أخيرت قيمها يا مدن ملكستو دوك أكجوكتان سوى البومقل موقي ويدين سو غاريو ولكن عبد الله مع الحسين وأكود صوتان channel كان نرورة channel هدي أتاي مركي كوه الرسي أو أداوت مقال كان فضلا سبسكرايب صار هدي أنا لسي جوكتو كوما حسنتهاي إن أتاي صاحب كان قدو مركا نلشر قريب دمان موضوعي كلا دون وأنا كسو قد بين هالكن هاي ولا ليال تاني أنتي محمد سعيد بيكي oo ka baxay fankii kana toobad keenay sida uu sheegay afkiisan xog ma karnaa moogta sida uu sheegay isagu fankii ka baxay kana toobad keenay ilaahay dartiina uga baxay 2015kiina uu go'aansaday fankan inuu ka baxo tan iyo marka muddadaas walaashan farxiye kaba yare oo runtii qof macnaha deeqaali oo bulsho badan oo Soomaaliyeed aad ugu xiran yihiin isla markaasina malaayiin وصاحب الملايين كلا وصاحب الملايين واي لما ينكر كرو ayaad moodaa farxiye kabeera markii inay hadalla sarbeeba ay maalmaha soo dhan ay ka soo baxayeen maxamed saciid bikeyna mar walbaaba oo meel fagaara uu soo istaago oo ka soo hadlo wuxuu dhiirigeliyaa in fanaaniintu ay isaga soo baxaan fanka oo wuxuu yiraahdaa kaalay xaggan khayrka imaada kaalay xaggan imaada haddaba marka warkii ugu dambeeyay walaashan farxiye kabeere saaka waa u soo bareertay arin anaga naga qarsooneed oo aanan dareensaneen ayay hortana gelisay dad fara badan dareenkaas way wada qaateen oo macnaha waxa weeyaan waxay yiraahdeen farxiye wala arinta waxba ka jira dad badan baa dhahay dadna way kaga soo horjeesadeen oo bani aadamka dhaba iska nooca oo markay ra'yi keento dadna way kugu taageeraan dadna way kaga soo horjeesadaan hadaba marka muuqaalka yaan idinku sii dheereene bal walaashan farxiye kaba yare intaad muuqaalkeeda ila wadaagtaan wixii tali tusaale qaybta commentiga aan isugu nimaadno dadna waa isku salidaade way dhaaftay وايد السلام وكبت حاج waxaa iskale fariintan walaalkay maxamed bikey fariinta marka waxay leedahay hadda maanta u soo baratay awal moogta hadalla sarbeeba hadalla caadiya ay dhihi jirtay moogta laakiin maanta waa ayadii oo qayaxan hadalkii oo fariintii oo qayaxan macna waxay leedahay fariintani waxa ay ku socotaa walaalkay maxamed bikey maxamed mubarak xataa waa loo gooyno marka maxamed bikey ay taagan tahay ay farxay ku soco bikey fariin ayaad noo soo dirtay aniga iyo fanaaniin badan oo waliba anigu aan ugu horeeyo fanaaniin badan baad magacyadooda xustay marka waad ku daawaday si fiican aan maaragtay u dhageystay fariintaadi walaalkayo waxaa jirta arrin markaad fanka ka bixaysay ayaan hore ka fanka bixaysay arrin waxaa jirta na soo gaartay oo fanaaniintu si hoos isugu sheegayeen laakiin aan wali adiga lagu weydiin qofkii ku weydiin lahaayna waa aniga run ahaantii marka maadaama aadan hadda adiga aadan sida caadiga ahayd fanaaniinta ula soo xiriirin laakiin aad jeceshahay inaad shaashadaha iyo TV-da ka soo hadasho sida hadda hadalkeeda ka maqlaysaan walaashan farxiye kaba yare maxamed bikey hadalkii ugu dambeeyay uu sheegay waxa uu macnaha waxa weeyaan ku dhiirigelinaysaanba hordhaca warkayga idinku sheegay markastoo fagaara uu soo istaago fanaaniinta wuxuu ku dhiirigeliyaa inay fanka ka soo baxaan walow markii hore uusan magacyo sheegi jirin laakiin hadda waxa ay sheegaysaa walaashan farxiye kaba yare in magaceedu ugu horeeyay magaceedu uu soo qaato yiri hebelow iyo heblaayoy macnaha waxa weeyaan fanka isaga soo baxa kaalay xaggan khayrka hase ahaatee waxaan marka anigu hadalka farxiye markaan aan rogrogay aan ka dhadhansaday markii inta shaashada aad noo soo istaagta aadna leedahay war ka soo baxa oo kaalay markii aan leedahay lambaradana iyo ciwaano waa kala heesanaa ma anaga inta nala soo xiriirto caadi noogu sheegtid waa meesha aan isleeyahay gartu waa ay ka qurman tahay sidaba saxaafadda markaad soo hor istaagto wariyaashu su'aalay ku weydiinayaan marka halkii su'aasha lagu weydiiyay inaad kaga jawaabtaana waa shay muhiim ah haddaba marka farxiye waxay ka doorbiday in hadalladeeda shaashadaha laga maqlo waxay tiri waxaan ka jeclaan lahaa in macnaha waxa waaye annaga aad nala soo xiriirto arrinta aad noo sheegto hadalka kale farxiye si raacsan waxay leedahay tan iyo fanki intii aad ka baxday waxaana soo gaaraya hadalla nuxnux ah waan ognahay Soomaalideena ayaaba nooca iska wada ah qofku markuu arrin ku tilaabsado nuxnux baa timaada marka nuxnuxdan la isla dhaxwado oo macnaha waxa weeyaan ay rabeen in ayaga loo sheego ka fanaanin ahaan bal farxiye kabeere maxay ka tiri waxaan ba jeclaystay oo igala sii fiicnaataba maadaama maanta aad soo hadashay inaan arrintii aan maqlay ee na soo gaartay inaan hadda si public kugu weydiiyo kor nagala socda bikey ii gaarsiiya su'aashaas iyo arrintaas
waxa ka jira su'aasheeda publican kugu weydiiha insha Allah jawaabtaana ka rabnaa adiga iyo aftigay Axmed Beef marka muhiimadu waxay tahay wax walba adduunka waxa fiican in daacad laga noqdo mashruuca haduu jiro BKO ina tiraahay dar ilaahay aan fan uga baxay qalad ay kugu tahay arrintan marka farxii kabiir ee ka hadlayso waxa waaye nuxnuxdii waxay noqotay in la yiri niman wadaada ah oo magac diimeed huwan baa waxay rabaan in fanaaniintii Soomaaliyeed mashruuc lacageed inta siiyaan ay yiraahdaan war dhaqaale inta la eg baa fanka ka soo gala intaasan ku siinayna isaga soo baxa markii qofku uu ka soo baxana si macnaha mashruucan qofka ugu sii socdo oo lacagtan ugu sii socoto in shaqo loo diro oo la yiraahdo u baaq fanaaniintii kale si ay uga soo baxaan marka mashruucan ay sheegaysa farxiye kabeere waa mashruucaas oo ay leedahay sida warkeeda ka muuqata in ay soo baxeen wadaado huwan calan diimeed isla markaasina raba fanaaniinta in ay xididasiibaan ayagoo markaasi lacag u adeegsanaya oo fanaaniinta ka soo maray dhanka dhaqaalaha oo markaasi dhahay in basaad ka hesha inta anaga ku siinayno hebel waani adiga ka soo baxsan samee waa hadalka ay farxii kabeere ka hadlayso haye ku sii soco marka waliba anoo kugu taageerayo hadii dhaqaalahaas mashruucaas dhaqaaleed uu jiro inaad qaadato waliba anoo kugu taageerayo oo waxaan kugu taageerayana ay tahay inaan fanka Soomaaliyeed faa'iido uusan lahayn oo dhaqaale laga sameeyno kulligan anagoo fanaaniin aan wada qirayno inaad dhaqaale uga baxdo iska daa fanaaniinta shacabka xataa kugu taageerayo laakiin inaad sheegto dhahdid aniga dhaqaale xumaan uga baxay fanka dhinacaanay iiga shidantay waa ii kala kacsan tahay mashruuc baana jira ee fanaaniinta Soomaaliyeed oo mashruuc khayr ku jiro oo waxa soo baxay aad fankina iska dhaafayso lacagti ma aragtay aad fan ku samayn lahaydna ayadii lagu siinaayo oo sadaqa ah aad helaysaa adoon dhibtoonan heysini ka soo baxa inaad tiraahay ee horto saas inaad tiraahay saxsanayd marka muhiimadu waxay tahay wax walba adduunka waxa fiican in daacad laga noqdo mashruuca haduu jiro BKO ina tiraahay dar ilaahay aan fan uga baxay qalad ay kugu tahay marka walaalkayo hadii uusan mashruuc jirin bal arkaya waxa la yiri maxaa la dhigi jiray weedha iyo hebelow maxaa kulansiiyay warka iyo weedha maxaa kulmiyay way farxiyay si ka maqtaaday busacad BKO mashruuca inuu jiro waxa anigu uga sii shakiyay oo aan ku sii aaminay xoogaay علشان تشكيل هذا سائد واي عم بيفا برونا صوت ضهضاهي او دور سنه عيلش بيها ku xareysna oo wax baraayay oo maanta la bado xadiis noo sheegi karo adigu adoo xabad aayad quraan aan ii sheegi karin aad maanta waxay ku celceliyay fanka hoog buu ahaa soo baxay ilaa shaqo laga rabaa waa lagu soo xujeeyay saan dareemayo mashruuca beginning waa idin sheegay mashruuca qaadashadiisa waxay tahay dad lacag rabto fanaaniinta soo tashkiili fanaaniinta soo dub laakiin aan qarsata ma aha anagoo kula ogaad noo sheegi lahayd lacaga jirto soo yaa leena dhii lahayd markaas ugu lama yaabeen moogta farciye kabar ummadana ma aniga 2019 aan sheegay in kabaheed aan la gashan karin horta waxay dhibsatay wacdiga faraha badan ee fanaaniinta looga yeeray xagga fanka taasoo la doonay in la dabar gooyo maxay ahayd suugaantii fankii suugaantii in la dabar gooyo sida hadalkeeda ka muuqato moogta way dhibsatay ereygaas way dhibsatay marka qofka waxa uu dhibsado inuu bulshada u sheego way fiican tahay runtiina farxii kabeere waa dadka laabta xaaran oo macnaha waxa waaye aanan xaqdi iyo caloosha waxba dadka aan ugu qaadin wixii marka ay ku qabtana halka kaaga sheegayso hadii private aad ugu sheegtana private kugu soo wadaagayso hadii aad public ugu sheegtana public kugu soo jawaabayso farxii kabeere marka waxa waaye kabteeda lama gashan karo waxa ay dhibsatay ereygan ah war heeda tashkiilintan faraha badan naga daa marka mashruucan la sheegayo ee lacagta maxamed BK waa la weydiiyay waxa la yiri maxaa kugu kalifay inaad fanka ka baxdo wuxuu yiri 2015 baan go'aansaday in aan fanka iyo heesahan iyo balaayadan iska daayo oo xaq ilaahay aan u go'o maxaa yeelay fanku lacag waad ka sameynaysaa laakiin lacagtiisu meel ma gaarto caaw lacagta sameyso subaxii adaa is weydiinay meel ay ka baxday ma taqaanid walow hadda farxii kabar ay sheegayso bay leedahay ba guri baa ka dhisatay ilaahay baa oge macnaha waxa weeyaan saasuu isagu yiri si kastabana waxa uu sheegay in ciduna aysan ku dirqiyin ciduna aysan ku qasbin isagu ilaahay dartii ogaga baxay waliba wuxuu dhahay hooyaday baa igu duceysay
ilaahay subxaanahu watacaala baan kaaga baryaynaa meel kheer qabto inuu irsaaqad kaa soo geliyo waa sida uu sheegay annaga xukminaynaa la yiri ma dhaheno marka sidaas ay tahayna tashkiilintan faraha badan shaki waa keeni kartaa waxaa la dhihi karaa war hadha hay-adahan diimaha huwan ee calankan diinta wata ee raba fanaaniintan inay xididasiibaan amayba macnaha arrintan mashruuc tahay oo la doonaya in fanaaniintan fankii ay ku jiraan lacaga loogu bedelo si ay isaga daayaan fanka sidiisaba waxaan la tumay waxaan la isugu imaanay iyo sheekadan iyo gigtan iyo jugtan waxaa kasii daran labada qof ee meesha isugu imaanaya laga yaabaa inay dhibaata ka dhex dhacdo halkii oo macnaha waxa wuxuu ilaahay raalli ka in halkii lagu dhex sameeyo taasaaba dembigeedu laba jibaar noqonaya soo xagarta ma marka dhibaatada ummadda ku hayaaba kasii badneedba sidaa daraaddeed marka shaki baa yimid ninkan ama mashruuc lagu siiyey waayo fanaaniin fara badan hadda xamdi kuhiin oo kale waa ay ka baxday cidna ma tashkiiliso waa daliilka moogtahay walaalkeen axmed kheer ama axmed biif saa u taqaaniinba isaguna dad ma tashkiilinin oo fanaaniinta hal markii uu ka baxayo fanka buu yidhi ilaahay dartii ogaga soo baxa laakiin inta ka sokaysay wuxuu iska ahaa xirow waxbarta oo masaajid ku xiran ceelasha biyuhu iska dega halkaa iyo duleedka magaalada muqdisho daradna wuxuu u yimid magaalada hargeysa muxaadaro oo kolley dee gobolo ka mid a somalilandna uu aad usii marayay oo burama wuu tegay burco wuu tegay kolley meelo kale inuu sii tegay ma huba laakiin saddexdaa magaalo waan hubaa hargeysa boorama iyo burco waan hubaa okay marka maxamed bk waxaa lagu haysta waxa weeye tashkiilidan faraha badan iyo magacyadan mar walba aad kusoo celcelinayso adigoo weliba taagan shaashadaha walaalow naga daabay tiri way afayfatay kabta xaaji ku soco marka walaalow marka adoo bk guri ka dhistay anigu fanka guri kama dhisan raasamaalna kama lihi adoo guri ka dhistay waxa aad uga maarantay baasa iyo qaadashadeeda waaye salaad cali jar wuxuu dhihi jiray lacag waa qaadasho codkuna waa anige yaa lacag waa qaadasho mashruucu waa qaadasho fankuna waa iska dhaafid markaas hadduu mashruucu jiro mashruucaas waa qaadasho fankuna waa iska dhaafid laakiin qishka si babliga u sheeg ummadana u sheeg ya toobadkeen wida baaso cidda diidaysa anigu inay jirto uma malaynaayaba fanaaniinta soomaalida dhan waa wada qaxanqax horay ka qaadahayn horay ka dafahayn horay just like that guriga gabagabadii asxaabta qiimaha iga mudan walaashan farxiye ka bayra waad arkayseen wixii taliyo tusaale adinka ayaa laidinka sugaya qaybta commentigeena nagula soo wadaagtaan laakiin aniga mawduucan waxaa u bixiyey haddaad maqli jirteen laba isku sallidan maxamed bk iyo walaashan farxiye kabayare ayaa la isku salliday ilaahay ha kala badbaadiyo aad baa u mahadsantihiin intaan muuqaal kala mida dib isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tegaya nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu